waxaanu ku bilaabanay magaalada Jigjiga ee xarunta gobolka Soomaalida ee Itoobiya. Wararka naga soo gaaraya ayaa sheegaya in halkaasi wararku ay sheegayaan ciidamada militariga ee federaalku ee gacanta ay ku qabteen oo ay hayaan madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar oo isla shalay la sheegay in uu awoodda uu wareejiyay. waxaana wararku ay inta raacinayaan in madaxweynaha hadda laga waday magaalada Jigjiga. arintani waxa ay ka dambeysay kadib markii ay ku soo beegantay qalalaase dhowr maalmood socday oo gobolka Soomaalida ee Itoobiya ka qarxay oo ugu dambeyn sababay in xilkii uu ka dago madaxweyne Cabdi Maxamuud. waxa markiiba la magacaabay oo xilkiisii bedelay madaxweynaha cusub Axmed Cabdi Maxamed. haddaba waa maxay isbedelkan waxyaabaha uu keeni karo? su'aashaasi waxaan weydiiyay Axmed Tiir oo ka faalooda arrimaha gobolka. xaaladda gobolka waxay meel adag ay maraysaa hadeer xisbigii sidii kooriya xisbigeedii oo kala haya hadda gacanta ku hayo haddaynan quwadaha kale ONLF iyo ragga ku shiraya hadeer oo madaniga oo ku shirayo diridhaba iyo hadday heshiis weyn u ka dhicin oo wadanka la isugu imaanin oo maskaxdii wadanka ay dib ugu soo noqonin waxa joogay maskax ma hayne oo mustaqbalka Soomaalida Itoobiya aan laga wada hadlin waxaan filayaa inay meel mugdi u sii gali doono. madaxweynahan cusub hadduu sidii Abi Axmed u dhaqmo oo uu ka go'o ninkii hore oo uu nabadgelyo qaato oo uu xorriyadda sii daayo oo xuquuqa insaanka uu sii daayo oo dimuqraadiyadda dadka jeelka uu ka sii daayo oo uu la heshiiyo oromada iyo qowmiyaadka ku helan waxaa la dhihi karaa isbedel uu keeni karaa. laakiin macalinkiisa jidkiisa hadduu raaco ma filaayo wax badan inuu soo kordhinayo. hadduu la yimaado siyaasad furfuran oo soo dhaweynayo oromada arrintaas hadduu ka falceliyo si fiican oo la diil karayo oromada iyo qowmiyaadka kale ku hawsan waxaan filayaa in isbedel iman karto waayo isbedelka guud ee Itoobiya hadda ka dhacayo ayuu qayb ka noqon doonaa. siday u badan tahay markuu dictator taga ama la qaado intii ku heerayd nin walbaba maqaarkiisa ayuu la cararaya wuxuu iska dayaa inuu yiraahdo ani arrintan ma sameeynin iyo waxaan oo kale ma sameeynin. waxaan filayaa inuu heshiis dadka dhaxmar bulshada ah dadka waalidkood la laayay dadka gabdhahoodii la kubsaday dadka sida xun loo galay oo tuntaas ma dhammaan karto ilaa ay dadka laga wada heshiisiyo oo la iscafiyo. marka dadka hadda iyaga ayaa naftooda u cabsanayo wax falcelinay sameyn karaan malaha. Axmed Tiir oo ka faaloonaya xaaladda gobolka Soomaalida ee wadanka Itoobiya.